madaxweynaha Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaasha gobolada Gedo iyo Jubbada Dhexe culimada la soo wal jamaaca siyaasiyiinta kale saraakiisha ciidamada bahda saxaafadda marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladan qiimaha leh maanta waa maalin taariikhi ah 7 July 7 Agosto dowladda Soomaaliya aad iyo aad bay taariikh weyn noogu leedahay waxaa maanta halkan ku soo bandhigaynaa wada tashigii noo socday maamulka Jubbaland ee madaxweynaha hogaaminayay iyo wafuudi kale gudoomiyaha gobolka iyo madaxdii culimada adduunka la soo wal jamaaca gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo aniga wada taqaanaan gudoomiyaha degmada Garbaarey oo ku jiray waxaanu isla fahanay in aan u wada hawl galno hirgelinta maamul goboleedka Jubbaland inaan qayb ka qaadano maamulkii la oran jiray maamulka ku-meelgaarka Jubba oo hadda u gudbayo dawlad goboleedka rasmiga ahayd ee xubinta ka ahayd dawladda dhexe Soomaaliya inaan wada hirgelino mabdiyan siyaasadihii kala gedisnaa dhammaan waxaan ku midaynay inay ka wada mid noqdaan maamul goboleedka Jubbaland wixii hore loo qabtay wixii ka khaldan oo bulshada saddexdan gobol wada degan ay cabashada ka qabto hadday noqon lahayd dastuurka hadday noqon lahayd arrimaha ku dhisan baarlamaanka in dib loo eego ayadoo oo hay'adaha awoodda u leh saxitaanka loo gudbinayo dhammaan talooyinkii aan isku waafaqnay oo halkan ka soo baxay inaan u midowno la dagaalanka argagixisada iyo xoreynta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamul goboleedka Jubbaland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay maanta inta naga maqan oo aanu matalaynay gudaha iyo dibadba ha joogeene waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan dhinaca midnimada oo tilaabada u qaadnay inay nagu taageeraan sixitaanka waxyaalihii khaldanaa ee hore u jiray in ay u tanasulaan ummadda siday horumar iyo ammaan u heli lahayd wixii maanta khaldan bari bay saxmayaan wixii bari saxmi waayana saa dambe saxmayaan Soomaalidu waxay ku maahdaa Roma maalin lama dhis ama waa maaha caalami ahba Roma waa magaalo weyn marka day dadka ka fikiriyaan in maalin la dhis waa kumanaan kun oo sano la dhisay wax kasta oo la dhisayo maalin iyo sanad iyo laba iyo sanado midna ma dhameystirmaan inaan ka wada qayb qaadano hirgelinta maamul goboleedka Jubbaland aniga waxaad ugu taqaanaan afkaartii maamulkii 6 gobol oo aan muddo dheer dhismihiisa aan wadnay maanta laga bilaabo arintaasu waxaan kala mid ahay bulshada 6 gobol degan xilligii ayada ay go'aansato inay dib u midowdo ama ayada ay go'aansato sida haddaba go'aanku yahay in laba dawlad goboleed ay ahaato waxaan maanta ka mid ahay systemka maamul goboleedka Jubbaland iyo hirgelintiisa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweyne ku-xigeenka madaxda kale ee heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada gudoomiyaha Jubbada Dhexe Mr. Cabdirashiid iyo guud ahaan marti sharafta kale ee halka ka soo qayb gashay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxa kale oo salaamaynaa daawadayaasha gudaha dalka iyo dibaddaba kala socdo munaasabadan waxaan aad ugu faraxsanahay in si weyn muxuu ahay maanta u tahay maalin taariikhi ah kow waxaynu muxuu ahaa
shirkii wadatashiga ahaa ee socday saddexda bari ee maanta munaasabadiisu aynu halkaa ku soo bandhignay waxaa laysku afgartay ama laga gaaray guulo is-afgarad waxaanu codsanaynaa inta daawanayso oo dhan inay isla qaataan khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland oo nin walba meel intuu iska dhigay midnimada Jubbaland iyo dib u dhiska Jubbaland laga wada qayb galo aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi dhammaan horta waxaan salaamahayaa madaxdii aan iska soo horjeednay oo Jubbaland oo kama u horeeyay madaxweynaha ku-xigeenkiisa golaha wasiirada xildhibaanada barasaabyada iyo tiimkanagi dhammaan waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaa qodobadii anagu aan soo joodinay waxaa akhriyay runtii saaxiibada iga horreeyay akhriyay dhammaantannana waa isla qaadan taladu maanta haddaan awal iskhalaafsanayn maanta taladaa naga dhaxayso waxaa naga dhaxeeyo sixiddaa naga dhaxaysa horumarkaa naga dhaxeeya la dagaalanka alqaacidadaa naga dhaxaysa dadkii aan nala kala safnaayow maanta waxaan rabnaa inaad meel u jeesataan khilaafkii siyaasadoo jira inuu naga afjarmo wixii midnaba lagu gaari karo runtii waxaan lagu gaari karo khilaaf laguma gaaro midnima horumar bay leedahay khilaafna kala tag buu leeyahay annaga waxaan leenahay runtii arrintaasi maanta waxbaan wada leenahay shalana waxbaan wada lahayn laakiin aragtidaan ku kala duwanay aragtida waa isku soo dhacday aad iyo aad baad u mahadsantihiin